soosaarka ee wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa ay ka waday tuulada Xaraf ee galbeedka magaalada Hargeysa. Munaasabad ballaaran oo loo sameeyay xadhigga jarista mashruuca biyo soosaarka ee tuulada Xaraf oo lagu qabtay duleedka magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siilaanyo, xildhibaano ka socda golaha wakiilada ee Somaliland iyo saraakiil sarsare oo ka socda hay'adaha UNICEF iyo UN-ka iyo qaar ka mid ah ganacsatada muwaadiniinta ay ka howlgala magaalada Hargeysa. ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa Ibrahim Siyaad Yoonis oo isagu munaasabadaasi ku soo bandhigay kharashaadkii kala duwan ay ku baxay mashruuca biyo soosaarka ee tuulada Xaraf ee duleedka magaalada Hargeysa. madaxweyne ku-xigeen wakaalada biyaha Hargeysa waxay ka mid tahay hay'adaha dawladda ee aad uga hawsha weyn ee culus ummaddu ka sugayso. waxaanu ka dhageysannahay muddadii xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hogaaminayay in tallaabooyin muuqda oo isbeddel ah ay ku dhaqaaqday. waxaanu maamul ahaan awoodda saarnay markii hore inaanu daryeelno sistamkii biyaha ee jiray oo sidii awal hore dhici jirtay ayna dhicin in haddii mishiin ama bam xumaado aan la odhan mishiin baa xumaaday ama bam baa gubtay oo magaalada biyihii soo gaadhay waxba iska beddelay. marka alxamdulillah taasise way ku guulaysano way dhammaatay. kadib waxaan ugu gudubnay inaanu ka fikirno in badan oo ka mid a magaalada Hargeysa ma hesho biyo. qolada aan helin mar haddaynu intii hore helaysay daryeelay iyagana in biyo loo raadiyo. sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Botis Smith oo isaguna ka socday hay'adda UN-ka ayaa iyaguna ka hadlay baahida loo qabay biyo soosaarka tuulada Xaraf oo ay sheegeen inuu yahay mid wax badan ka dabooli doono biyo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Hargeysa. iyaguna maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa ugu mahad celiyay isla markaana ku ammaan sida firfircoonida leh ugu dhiiraday inuu biyo ka soo saaro tuulada Xaraf ee duleedka magaalada Hargeysa. Botis Smith ayaa sidoo kale waxa sheegay in hay'adda UN-ku ay la shaqeeyaan dhammaan wakaaladaha biyaha ee gobolada Somaliland. gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray isla markaana halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa isna tilmaamay in mashruuca biyo soosaarka ee tuulada Xaraf ee galbeedka magaalada Hargeysa uu ahaa mid loo baahnaa isla markaana wax badan ka dabooli doono biyo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Hargeysa. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa sidoo kale ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa oo uu sheegay inuu yahay shakhsiyaad lagu dayan karo isla markaana cid kastaba ku dayo sida hagar la'aanta ay uga soo baxay xilkiisii. dhammaan dadweynihii reer Xaraf iyo intaankan la soo marisay beeb soo marayba dadkii sida wanaagsan u soo dhaweeyay ee caqabado ku noqonin horumarka socday iyo ummadda biyaha la soo gaarsiinayo. dadweynihina aad iyo aad baan dhammaantood waxaan baqaynayaa waana waajib saaran ummadda reer Somaliland wixii horumar la qabanayo inaan laga hortegin oo markay biyo tahay ee beebku beerta kama qaaday beeb la dhex mariyo oo hal mitir hoos loo asaayay beerta kama qaaday. marka inaan horumar ka horin waa mid loo baahan yahay. aad baan reer Xaraf iyo master Saciid runtii isna aad baan ugu mahadnaqaynaa oo ah ninkii dhulka bixiyey ama maadkiiyo soo ahaato ama markii dibadejinta dadkan halka loo sameeyaa aad iyo baan ugu mahadnaqaynaa. runtii anuu siyaasaddeeda dowlad ahaan muddadaas 3 sano xilkayga wuxuu ahaa adeegyada bulshada si dadka loo gaarsiiyo.